لباقي العيون تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت asxaabta channelka wuxuu waxaan ka codsanaynaa inaad si fiican muuqaal noo soo dhigno allaygna dhahdaan naguna caawisaan subscribe-ka gambalelka yarna furataan muuqaal noo soo dhigno saad aragtaan aad baad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. walaalayaal maanta waxaan kusoo gudbin doonaa barnaamij taxana oo inoo socon doona oo ku saabsan fadaa'il al-casharatu al-mubashiriina bil-janna, saxaabadii 10 jannada lagu bishaareeyay. waxaana ugu horeeya awalu 10 al-mubashiriina bil-janna Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, ilaahay ka raali noqdee. magaciisana waxaa la odhan jiray Cabdullah ibnu Uthmaan baa la odhan jiray. sayidun min saadaati quraysh ayuu ka mid ahaa. qurayshtii xilligii jaahiliga sayidkoodii ama saadaadkoodii ayuu ka mid ahaa, madaxdoodii ka mid ahaa. oo quraysh xilligii jaahiliga sharaf ayuu ku lahaa iyo qadri weyn ayuu agtooda ku lahaa. xilligii islaamkana wuxuu yeeshay sharaf weyn oo wuxuu ku yeeshay islaamka dhexdiisa qadri aad u sareeya iyo sharaf weyn buu ilaahay siiyey. wa khayru rajulin bacda al-anbiyaa, wuxuuna noqday ka ugu khayrka badan bacda al-anbiyaa. ambiyada marka laga yimaado dadka kale oo dhan ka ugu khayrka badan weeye Abubakar. axabu rijaalin ilaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam, ka ugu jecel xagga ragga ayuu ahaa rasuulkana. qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam, rasuulku wuxuu sheegay: low kuntu muttakhidan khaliilan khayra rabbii latakhadtuhu Ababakrin. rasuulku wuxuu yidhi saaxiib ama khaliil haddaan samaysan lahaa khayra rabbii, waxaan ka yeeli lahaa ama ka dhigan lahaa Abubakrin baan ka dhigan lahaa. ha yeeshee rasuulka ilaahay ayaa khaliil ka dhigtay, Abubakar saas ayuu naga dhigan. Abubakar wuxuu ka mid yahay oo kale al-khulafaa al-arbaca raashidiin ayuu ka mid yahay, khulaafadii afarta ahayd ee xilligii nebigu dhintay qabtay xilkii muslimiinta soo hogaaminayay ilaa uu kala wareegay Cumar ibn Khadaab radiyallahu anhu. Abubakar markuu dhintay uu meel fiican islaamka soo gaarsiiyey, sarana u qaaday qadriga islaamka. markii dambena uu ku wareejiyey Cumar. sidaa ayuu fadli dheeraada ama cadiima muslimiinta dhexdooda ugu lahaa. xilliguu soo maamulayeyna islaamku meel fiican ayuu gaadhay oo ilaahay waa ku sharfay. 10 mubashiriina bil-janna 5 ka mid ah waxaa gacantiisa kusoo islaamay Abubakrin, oo ilaahay sabab ugu noqday islaamka inay soo galaan oo ay ku yeesheen qadri iyaguna cadiimo, ilaa markii dambe nebigu sallallahu alayhi wasallam ugu bishaareeyey inay janno gelayaan 10kaas saxaabi iyagoo adduunka korkiisa maraya. markaa wax aad iyo aad loogu farxo oo shay cadiima weyn weeye. waxaan jeclaystay inaan intaan la wadaago. wabilaahi tawfiiq.